runtii marka dalkaaga aad horumarkiisa ciidankiisa dhismayaashiisa caafimaadkiisa waxbarashadiisa dhammaan adeegyada bulshadaada aad maamulaysa ay kaaga baahan yihiin aad ku fargaraysid aad noqotid dal aan dibad aan waxba uga baahnayn runtii waxa lagu soo kala baratami doona oo tartan loo soo gali doona caawimaadaada si hadhow lagugu xijaysto waxaan ahay dalkii kuugu soo hor caawiyay berigii masiibada noocaasi ay kugu dhacday haddaba waxaynu wada garowsannahay in ogsoonnahay in tukriga uu ku dhuftay dhulgariir aad u baaxadiisu weyne oo ilaa masiibadiisa ilaa imika aan la hadlay ay socotaa oo daadgurayntii dadka weli ay socotaa haddaba marka arrintaasi dhacday masiibadii waxaa tartan u soo galay dalalka jaarka inkastay masiibadee ay bini'aadamka ka baxsan ay tahay waxa uu ilaahay koonkan ugu talagalay inay ku dhacdo lagu cibir qaada ay tahay haddana saasay tahay waxaa mar walba ixtiraamkii respectiga aad ku helaysaa awoodda amba masabkaad adduunka kaga joogtid runtii dalal badan baa ka soo qayb qaatay caawimaadda walaalaheena dalka tukriga haddii aan ugu horreysiiyo dalka ugu horeeya China向各位出征表示敬意。我们在北京等待着你们平安归来。ugu horeeyay oo uguna hor imid caawimaadiisuna ugu soo horgaadhay haddaba China waxa uu soo diray 82 xubnood oo micnaha 82 xubnood oo qof oo iskugu jira dhakhaatiirtii kuwii awoodda ku caawinayay dhismaha la gurayay injineeradii kuwii CC Camera wixii oo dhan iskugu jira ayaa loo soo diray sidoo kale ilaa waxa loo soo diray toddoba ay mise afar ay ilaa meelahaas tira ahna waa loo soo diray oo siyagu si researchka iyo waxyaabaha ay u baahan aydu soo kalena lacag bay ku soo direen China oo ilaa gaaraysa 5.9 million dollar ay soo direen ay soo bixiyeen haddaba waddanka yare isna Croatia loo yaqaano ayaa isna waxa uu soo diray ilaa 40 qof oo ay ku jiraan 10 ay oo iyaguna kala qaabilsan qaybahaas baahiyaadka ugu badan ka jiraan sidoo kale Jarmalka ayaa ku jira oo isna soo diray ilaa 50 qof oo gaargaar degdeg ah waliba salaasadii shalay ay iyagu yimaadeenba ilaa iyaguna waxay soo raaciyeen 7 ay oo qaabilsan muxuu ahaa researchkii iyo waxyaabihii sidoo kale waxa ku jira muxuu ahaa Greega ayaa ku jira oo isna soo diray 22 xubnood oo iyaguna ah muxuu ahaa caawimaadda ka geysanaya dalkaas sidoo kale 2 ay baa ku jira oo iyaguna gargaarka kamid ah oo iyaguna qaabilsan waxyaabahaas hadaba iyagu waxa kamid ah qaybaha ay soo direen waxa ka jira structural engineerkii baa ku jira 5 dhakhtar baa iyaga la socda dalka India iyagu waxay soo direen 2 teamna waxa loo diray dalkii kale ee Syria teamna waxay joogaan dalkan tukriga ee masiibada aad inta ugu badan ay taabatay hadaba iyagu waxay u kala qaybsan yihiin qayb dhakhaatiir ah qayb waxay u qaybsan yihiin muxuu ahaa injineeradiya qayb waxay u qaybsan yihiin isticmaal samuruqi oo dhismayaashii iyo wixii la soo guraysa haddaba qaybaha kale ee caawimaadda ay ka soo gaadhay waxaa ka mid ah waddanka Israa'iil baa ka mid ah oo iyadoo ilaa 50 waxay u soo dirtay 150 xubnood bay u soo dirtay oo injineeradii leh oo medical personneskii leh oo workerskii leh dhammaan intaasoo dhan bay u soo dirtay qolada Israa'iil Talyaaniga laftiisu wax buu soo diray isna wuxuu soo diray ilaa iyo wuxuu soo diray ma caddo laakiin isna wuxuu soo gaarsiiyay 5 firefight ayuu soo gaarsiiyay baalanda damiskii ayuu soo gaarsiiyay iyo wax preparing waa ku jira buu leeyahay Talyaanigu laakiin isna uu ka soo qayb qaatay caawimaad oo qalab caafimaad iyo waxyaabahana uu soo diray Japan iyadu waxay soo dirtay oo kaliya 27 xubnood oo weekarisa ay toos ugu dirtay dalalku aad buu badan yihiin wadamada muslimkana Lubnaan iyo Liibiya iyaguna wax way ka soo qayb qaateen oo iyaguna way soo direen Liibiya kale waxay soo Lubnaan oo kale waxay soo dirtay askar bay soo dirtay oo sidoo kale waxay soo dirtay kuwii sifa askartii qaybaheedii kala duwanaa kuwii difaaca kuwii kale dadamisiyadii waxaas oo dhan iyaduna ay soo dirtay Liibiya waxay soo dirtay 55 xubnood oo team oo qaybihii oo dhan iyaguna kala qaabilsan Malaysia lafteeda ayaan iyaduna ka yaraysan oo Prime Ministerkiina Anwar Ibrahim oo hadlay laftiisa kuna dhawaaqay in caawimaad halka la geeyo
tukriga masiibada ku dhacday marka 72 xubnood ayaa iyaguna ay soo direen oo qaybihii workerskii qaybihii medicalkii wixii oo dhan koobsanaya sidoo kalena lacag bay sheegtay Malaysia oo ah ilaa muxuu ahaa $1 milyan iyadoo way ku soo dartay wadamada America waxa ka jira Mexico qaaradda dhinacaas waxa ku jirta Mexico oo iyaduna way soo dirtay equipment qalab bay soo dirtay ay soo dirtay caafimaadkii iyo kuwii dhismayaasha lagu qaadi lahaa NATO kale iyaga laftooda Twitter-kooga ayay ku soo qoreen in caawimaad soo gaarsiin doonaan Recep Tayyip Erdogan oo kale in caawimaad soo gaarsiinayaan marka iyada lafteedu way ku jirtaa oo marka askar oo kale way soo horeysiisay sidoo kale waxaana meesha ka maqnayn Pakistan oo iyaduna dal ay ognahay muslina iyaduna ilaa 50 xubnood bay soo dirtay iyo 25 tan bay soo dirtay intaas ay soo gaarsiinaysaa aircraft bay iyada ku jirta diyaarada wax qaadayay dhammaan waxaas oo dhan baa tukriga ayaa caawimaad loogu wada geynayay waxaa kamid ah Falastiin baa kamid ah Qatar baa iyaduna soo dirtay oo kamid ah oo waxaa kamid ah Romania kamid ah wadanka Russia oo isaguna soo diray Vladimir Putin isna uu soo gaarsiiyay caawimaadii ay dalka muxuuha tukrigu ka mudnaayeen marka ilaa 300 oo military ciidan ah ayuu gaarsiiyay labada qayboodba tukriga iyo Syria labadaasba wadamada sidoo kale waxa soo diray Saudi Arabia ayaa isna order soo gaarsiiyay caawimaadda Serbia kamid ah South Korea Spain Switzerland Taiwan Ukraine marka Taiwan oo kale iyadu waxay soo dirtay ilaa 200,000 ilaa 40 qofna way soo dirtay masha Allah Ukraine oo kale iyadu way soo hadashay iyadoo dhibaatada ku jirta lafteedu way masiibadan waa masiibo natural iyaduna way soo dirtay waxa kamid ah Imaaraadkii Dubai oo Imaaraadkii baa kamid ah United Kingdom waxa kamid ah United Nations kii baa kamid ah United States America baa kamid ah caadowgu laguma kala harin ilaa waxa kamid ah European Union kii 7 ilaa ay ku jiraan 19 dal ay ku jiraan 7 labada mid bihid ay ku jiraan ayaa iyaguna soo dirtay marka dalal badan baa ka qayb qaatay caawimaadii loo gaarsiinayay walaalaheena ku sugan ku dhibaataysan dalka tukriga taasna ilaahay wax naga barayna dhamaantood wixii ku shahiiday intii ku dhimatay intii dhaawac ku aabay inuu ilaahay dhamaantood ka dulqaado dhibaatooyinka jira intii ku shahiidantayna ilaahay jannatul firdaws uu ka abaal mariyo dalka tukrigana masiibadan haysatana Allah inuu ka dulfeeyo inagoo Soomaaliyana waxaan ka baranaa halka inay maanta hadii aynu isdhisno oo aynu iska yarayno muxuu dhibaatooyinka dhexdeena yaala aynu khilaafad ka yarayno in maanta adduunku hal mar inuu istaagi karayo sida maanta uu qofba amba wadanba uu gaar ula baxayo wadan bagaar loola baxayo gobol bagaar loola baxayo magaalo bagaar loola baxayo magaalo sidan qaybsanaantaas runtii waxay inagu tahay inayna weligeen horumar iyo bartaan taagana inaa ka kicin marka wax rajeenayaa Allahna weyn inuu wadada toosan inuu wada hadeeyo oo dad diinteeda isku xukumo ay naga yeelo taas ayayna horumar mar walba ku gaareenaa وعدالته أي مر والبصريس ومعناها قبيلك ولا تعارفوا أكيد أنا لسكوحك سيسن باي مشكلة الدبتة كانت وحوية يسحك سيس قف كي لقى يابينو دلكي بدلها ولا جحك سينا يا قف محوها تيجا كبضان سواء لو اسكو هذا دحنا شيء قبائل كجوا واحد سوى تقول سدا اسكو هذا دحنا قبيل بحالك كبضان وحلت تجن تاسو قبيل أو كلا تاسو بالسي تجن marka mushkiladuhu Soomaalidu way iska badayeen insha Allah wax rajeynaa kuwii laga bixi doono maadaama dadkii imika wixii dagaalaadka ka soo yaraaday ay qabali aad ugu koreen oo dhalinyarta imika joogto oo u dhaxaysa 30 ilaa 20 ay yihiin dhalinyarta inta badan qabaylka aad ugu dhex koreen ayagu laakiin wax dhibaato oo badan aan la kulmin sida qarniyadii hore oo kale iyo wixii ka horeeyay 80kii wixii ka horeeyay dagaal un bay hayeen wax nasashaaba ما يجرين أو ده وحقيق baxayon buha marka inaha tan barnaamijkani kaga bixi doona